kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba meel walba waa joogtaan iyo si walba muuqaalkeena idiin soo gaarayo kusoo dhawaada Somali Freedom halkani waa barta aad aalaabay nagala socotaan bartayada YouTube-ka iyo sidoo kale Facebook waxaan aalaabay idiin soo gudbinaa sheekooyin taxana ah muuqaalo xiiso badan iyo xogo daahsoon oo aan isleenahay si gaar bay u mudan yihiin tabin qiimo badan in lagu sameeyo iyo sidoo kale soo gudbin xeeladaysan oo ay tahay in la qaada dhigo waqtiyada qaarkood sida aad wada ogtihiin sheeko kasta dhacda ayaa ka dambaysa dhacdo kastana sheeko ayaa ka dambaysa isugeynta dhacdo iyo sheeko taxana iyo sidoo kale tagta ahayd iyo mid timaada ah ayaa sidoo kale ah mid mudan in mar kasta la iswaafajiyo halbeegeeduna uu yahay mid sahlan quman oo aan dabcan ahayn in si guud loo qaada dhigo muuqaalkan haddii eeba uu raali ka noqdo waxaan ku soo qaadan doonaa harada jacaylka ee Dubai hara waynu naqaanaa Dubayna waan garanaynaa jacaylna qiimihiisa qof kasta garanaya isugeynta saddexdaas eray ayaanu rabnaa muuqaalkan in aanu ku gorfeyno haddii eeba uu raali ka noqdo sooyaal kooban oo ku saabsan meesha tan waxa ay kulansatay dhaqaalaha ku baxay ujeedka laga lahaa fariinta dadka yimaada iyo sidoo kale dabcan waxa ay mudan tahay marka loo yimaado dadka sida ay ku qaabisho kusoo dhawaada muuqaalkeena وهجاك مركله كلن wanaagsan dhamaantiinba saaxiibayaal soo dhawaada waxaan hay Ciidulus Iimaan muuqaalka iyaga ayaan guda galeynaa oo hordhaca aad daawateen waxaanu ka hadlaynaa sida aanu idiin sheegnay harada jacaylka Dubai dabcan wax kasta oo jacayl lagu lamaano qiimo iyo mudnaan gaar ah ayay u leeyihiin dadyowga dunida jooga waa sababta jacaylku u yeeshay dareen gaar ah muunad gaar ah iyo macno gaar ah iimaylka gooni ah wax kasta ayuu dabcan muujiyaa marka ay tahay waqti ku haboon iyo jawigii ay ahayd in lagu soo bandhigo iyadoo aadamiga oo dhan uu ka wada midaysan yahay qaadaadhiga iyo sidoo kale qiimaha jacaylka haddana beecada ayaa mararka qaybtood ka dhigta mudnaan iyo sidoo kale mudan gooni ah taas oo dadka qaybtood ay jeclaan lahaayeen in madal kasta jacayl dabcan loogu waqlalo oo loogu magac daro ama dabcan ee loogu dabcan magaranaysaay lagu halbeego muuqaalkeena ayaan guda galeynaa haddii eeba uu raali ka noqdo harada jacaylka oo qaabka wadnaha oo kale loo sameeyay dabcan waxa ay dhacdaa saxaraha u dhow Dubai waana bartilmaameedka dalxiiseed oo bariga dhexe ay lamaanayaal fara badan u soo aadaan iyaga oo jawi qurux badan ku qaadanaya muuqaalada halaasiga ah oo ay caan ku tahay Dubai sida Burj Khalifa ma ahan kuwa la koobi karo laakiin hadda waxa kale oo jira muuqaalo ildoogsi iyo dalxiis bale oo ay ugu dhaxtagi karto saxaraheeda harada jacaylkana waa mid kamid ah waxay ku taalaa meel u dhow Al Qudra Oasis waxayna ku fadhidaa ballacdan 550,000 oo mitir oo wareeg ah waa meel muhiim ah waa madal aad loo qurxiyay aad loo hagaajiyay bilicdeeda iyo sidoo kale beecadeedaba laga fikiray sida ka muuqata muuqaalka aad arki kartaan dusha sare marka laga sawirana waxay muujinaysaa qurux dabiici ah oo lagu dheehay qaab dhismeed isaguna sinaba aan indhaha dabcan looga jeedi kareynin dhismaha iyo quruxda ayaa qaaya iyo qiimo u yeela dabcan meel kasta oo markaas dadku ay u arkaan inay tahay meel aad u sareysa adduun adag ayaa uga baxay suurtagelinta harada jacaylka dowladda Imaaraadka waxaana kamid ah beerista in ka badan 15,000 oo geed ah oo loo ekeysiyay sawirka wadnaha iyo ubaxyo kala cayn ah waxa kale oo xusid mudan in xataa ereyga love isagana loo qaabeeyay si farshaxamaysan oo dadka yimaada ay aad u soo jiidato meesha ayaa laga fikiray beecada ayaa loo qurxiyay dadka ayaana dabcan wax kasta oo ay danayn karaan ama soo jiidan karta ruuxda bini aadanka lagu dheehay muuqaalka ayaadna ka daawan kartaan sida aad arkaysaan xogta aan ka waramayno muuqaalkeeda wuxuu soo shaac baxay sanadkii 2018 markii boqorka dabcan Imaaraadka Carabta Sheekh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum uu bartiisa Instagram-ka soo dhigay sawir laga qaaday harada jacaylka Dubai haatan waxay kulansatay meelo badan oo muhiim ah mar waa xarun
dabcan ganacsi oo muhiim ah, il dhaqaale iyo madal dalxiis. dadyow badan oo daafaha dunida ka yimaada ayaana usoo dalxiis iyo tamash la taga. lamaana ha noqdaan, keliya ha noqdaan, ama qoys wada jira ama shakhsiyaad gaar ah ayaa waqti qurux badan ku qaata. dubayda aynu ka hadlayno ama si guud imaaraadka, meel saxre lama degaan ah, meel dabcan kuleyl badan oo ay adag tahay in dad iyo duunyaba ku noolaadaan, ayaa hadda laga dhigay meel sarreysa, madal qurux badan oo dunidu magac iyo sidoo kale munad gaar ah ay u wada yeeshay, oo socdaal, ganacsi iyo dhaqaalo iyo barkulan dunida u noqotay. muuqaalkeena waa inaga intaa. waxaan halkan idinkugu soo gudbinay muuqaal ku saabsan ama sheeko la xiriirta harada jacaylka Dubai. si aanu usoo gudbino muuqaalo kale oo xiiso badan, fadlan saaxiib nagula noqda boggeena YouTube-ka iyo sidoo kale dabcan kan Facebook-ka. wehel ayaanu noqon doonaa, wax badan ayaana kala faa'iidi doonaa. waad ku mahadsantihiin daawashadeena. anigoo Cidruus ayaa idinla socodsiinayay, Fuad Cabdisaaq Gurey ayaa dhanka kaamirada quruxda badan iga caawiyay. anagoo wada jirna nabadiino, soo qaad wanaagsan.